بسم الله الرحمن الرحيم. إله ما مهلا إله هنا أبوري إسلام هنا قدقي عقل جاي عافمات كنسي إله سام مهله وحن كلام هذا علنا يا جامع ويوسود ويي راديو جيسن هل كان عن دون يوم ما تبلينا وحي إله فكر وأنسله بالحبات سومالي كبيرين كرتا أما وحن كبيرين كروه أنا هل كان كسي دايو أنا جو سليب المركو هوري haddii aad xanuunsanayso waa inaad ogaataa bukaankaaga wuxuu yahay markaad bukaanka la ogaadaa daawada la heli karaa haddii aadan bukaanka ogaan daawo lama raadin karo lamana heli karo isweydiin waxaa leh soomaalidu inay bugto oo xanuun hayo meel kasta waa joogtee laakiin xanuunka uu hayo waxa uu yahay waxaan u malaynaa weli la isweydiin waxa isweydiin leh haddii dowladdu bukooto dowladdu xumaato saxideeda yaa leh waxaa kaloo isweydiin leh haddii shacabka xumaado yaa toosintii iyo sixitaankiisa leh labada suba hadday xumaadaan oo bukaan ku dhaco waa halkeenu joognee muxuu yahay xalku waxay aniga ila tahay waan odhan lahaa inaynu dowlad raadsanno khalad bay ahayd waayo uma muuqanno inaynu rabno rabitaan dowladeed inagama muuqdo qodobka labaad in hoy looga dhigo xamarna khalad labaad bay ahayd sababtoo ah uma muuqato xamar inay dhaliso dowlad soomaaliyeed oo ay noqoto gurigii saldhigga u noqon lahaa hoyga soomaaliyeed sababtu waa maxay mala wax kale ka doorbideen intaa haddaan ka gudbo waxaa isweydiin leh ama aynu ognahay soomaali waa isdishay yaa garanaya waxay soomaaliya isku dishay mase jirtaa meel lagaga wada hadlay wixii laysku dilay oo lagu gorfeeyey waa maya haddii laysdilay asaan la wada hadlin wixii laysku dilayna la garanayn sidee baa loo wada jaanqaadi karaa in wanaag iyo dowlad la wada dhaliyo waa wax anaga maskaxdeeda ka maqan laakiin aan dadweynaha ka rabo bal hadda inay halkaa bayaaniyaan intaa haddaan ka gudbo waxaan doonayaa arrimo dhowr ah inaan taataabto waan isleeyahay waa meelaha ay bugtadu ka jirto magaaladan berdhoweed wiigii hore waxaa lagu qabtay xaflad aad u qurux badan oo lagaga hadlayay gobolka Kismaayo oo ay daadiinayeen niman la baxay Soomaali Weekeer waxaa la onkado dhaco heesha dhac in magac wanaagsan lala baxo way sahlan tahay laakiin inaad ku sifowdid aad bay adag tahay sheekh hebel inaad la baxdo gar la baxdid way fududahay laakiin ay calaamadihii ataartii wixii ka muuqdaan laga rabay waxaan u maleynayaa inaanay arrin fudud ahayn armayba ka dooroonayd nimankaas saaxiibada ahaa ee Soomaali Weekeer la baxay inay la baxaan Kismaayo Weekeer dab shidnaa bay gaas ku sii shubeen anaga aragtidayda aan ka gudbo iyagana intaas waxaan ku xojinayaa madaxweynaha Cabdiraxmaan Faroole oo maanta nin daaweyna oo daaroodnimo fayga maanta meelahan la marayay aniga waxaa ila qumanaan lahayd Cabdiraxmaan da'diisa iyo khibraddiisa inay noqoto mid ay Soomaali ka faa'iideysato haddii kale waxay noqonaysaa daleel maran dambina iyo ceebina way ka raacaysaa aan ka gudbo xasan madaxweynaha xasan sheekh oo maanta wuxuu yidhi hoos baad u noqotay waa lagu hanweynaa xasan sheekh wuxuu ahaa nin aad loogu hanweynaa oo la filayey inuu dhaami doono kuwii ina soo maray laakiin nasiib darro wuxuu noqday nin aad iyo aad uga liita nimankiina soo maray ayuu noqday waxaa la yidhi nin baa halu jeclaa ay ka luntay hashii oo dhalaysa buu helay dabadeedna hashii waa dalka Soomaaliyeede hashii wuu celin waayo hashii dib bay uga luntay haddana waa ayaan daru mar rabo maamaahda xasan inaan ku sifeeyo saaxiibadii ay ku gol qabateeyaan laakiin maansaan ugu bedelayaado aad ka fahmi doontaan xasan waxaan odhan lahaa bii waaye ka ranow kuwii hore ayaan odhan lahaa xasanow waxaan la dhoodhoobay magacan dowladnimada Soomaaliyeed waa magac qurbaha ka jira qurbuhu runta ka jira yaanu duminin oo yaanay duminin oo isla degan Kismaayo waxa maynarka iska iloowo Soomaalidan godka ku sii socota badbaadinteeda baa igala habboon in maartay la ilaaliyo la eego
xasanna intaan kaga gudbo sheekh madoobe sheekh maxamed madoobe iyo fartaag iyagana waxaan odhan lahaa waa xil ammaano ku ah ammaanadii cirku diiday ee dhulku diiday ee buuruhu diideen inaad qoryo soo qaadato dad ku layso horta waa ayaan daro inaan shiikh sheegto oo shiikhnimo sheegto ammaanana aan dadka ku laayo wax israaca maaha si kastaba ha ahaatee anigoo arkaya ama ay ila tahay runtii sidaa ay yeeleen inaanay joyce lahayn xamar ay ku kaliiftay halkaa ay mareen ay xamar ku kaliiftay waayo inay xamar raacaan oo xamar sida ay rabto ay yeelaan iyo sidaa ay yeeleen inay yeelaan labadaas unbay midkood lahayd laakiin haddana isma raacdo inaan shiikh iyo taytal culimnimo sheegto haddana ammaano ummadda u dhexaysa aan qoryo u soo qato dad ku laayo wax israaca maaha waxaanse kula talin lahaa xilkan iyo ammaanadatan maalinta ay ummaddu garato inay idinka wareejiso ha soo qaadanina qoryo si habsamiya u wareejiya wayga talo iyagana intaa aan ku dhaafo shacabka soomaaliyeed had iyo jeer durbaanka u sita waxaan dantooda ahayn ee aan kala ogeyn ka u xiiraya iyo ku xoqaya aan kala ogeyn weynaada oo garta meesha mustaqbalku ku jiro iyo ka wanaagga soo wada cadfadan qabaa'ilaadka ah ee aan meel idin geynayn ee ina dumisay aynu ka korno oo ka weynaano ilaahna aan ka baqno mustaqbalkana aan ka eegno wax aynu doonayno iyo madhaxeeda intaa haddaan ka gudbo waxaan jecelahay maanso hadda wiigan soo baxday inaan ku soo xidho barnaamijkan gabayaamahay anigu runtii laakiin marka uun daan wax maqlo unbay maarata maskaxdu gocataa wuxuu yidhi jeeray danteen iyo gartaan doorkan waxa jooga jeeray direeska u xidhaan calankan daaduumay jeeray dembiilaha qabtaan dacarta qooshaya jeeray dilaalnimo nacaan waa daaweyn tahaye jeeray isbaarada dunshaan maalka lagu dooni jeeray wixii laysku dilay daawo laga gaadho jeeray ninkii duunyo dhacay loo dalbado ciidan jeeray agoommaha dayacan samafal loo doono jeeraynu wada diirsanno duugga wada eegno dar ilaah darxumadiiyo jeeray nacaan dirirta guuyowday darxumiyo jeeray nacaan dirirta guuyowday jeeray dalkeenniyo hantaan dowladnimadeenna jeeray waraabaha dibiray daabcad lala egto jeeray dulmiga joojiyaan daayin kuma reebay jeeray digriga iyo wacdiga daacad laga sheego jeeray kuwii kala diday aan deris walaalayno dar ilaahay jeeray gartaan duugguwa isaga dowladnimo ma ay muuqato ee waa daleel madhane durbaan beena baad haysataan damac la'aaneede dadkuna haatan waa yaaban yahay dowyadaad mariye dib u fiirso oo koro hagelin dabaqi naareede maansada intaasaan ku soo koobayaa waxaan leeyahay ilaahay hayna garansiiyo wax xaqa ah ilaahay hayna garansiiyo intaasaan kusoo koobaya mahadsantiin waa hagaag dhegeystayaal markii aanu qabanay barnaamijkii koobnaa ee cawil tarabi uu inoo soo gudbinayay barnaamijka oo ahaa barnaamij xiise leh dhinacyo badanna taabanayo ayaan waxaanu door bidnay inaan waraysi gaaban kala yeelano cawil barnaamijka isaga ah cawil mar kale kusoo dhawow saxaafadda soomaalida albert waa mahadsantay jaamac barnaamijkii gaabnaa ee bugtada soomaalida aad ku tilmaamaysay maansadana aad ku taxday aad ayaad ugu mahadsan tahay inaad nala wadaagto dhegeystayaashana aad la wadaagto balse waxaad moodaa barnaamijkan ulajeedadiisa inay dad badan isweydiin karaan muxuu yahay waa suurtagal weeye waayo waxaa la yidhi maan rag waa madaxyaafkii ilaahay biniaadanka qofba sibuu maaragtay wuxu tusaa muxu garansiiyaa marka waa suurtagal qofba inuu meel la aado waa suurtagal weeye laakiin anigu kolley waxay iga ahayd meelaha aan filayaan taataabtay meelaha aan is leeyahay bugtada ka jirta ama dalku waa ka liita oo dheeligu meelahaasu ka imaanaya waxaa dabcan kale oo la isweydiin karaa dhaliilo badan baad soo jeedisay dad badan baad dhaliishay dowladda federaalka dowlad maamul goboleedka puntland
maamul goboleedka cusub ee Jubbaland madaxdeedii guddiga qabanqaabada Jubbaland mataqaana Alberta oo hadda la baxay Somalia we care was Somalia marka dadkii oo dhan waad wada eedaysay waa sida ay arinku igula muuqday Somali we care groupkaas oo saaxiibaday ku jiraan ma yihiin haddii aad la baxdo maxaan ku dhahaa waxay sheegtay inay yiraahdeen Soomaali baanu danaynaa ama Soomaali baanu wuxuu qabanaynaa arrinkooduna wuxuu ku waajahnaa meel gooniya kuna wajahan yahay marka miyaanay ka fiicnayn inay yidhahdaan Kismaayo we care dab Kismaayo meel la isku haysta bay ahayd dhib ka taagan tahay laga soo horjoodo gar iyo gardaro kay doontaa noqotay marka dhibkii jiray un dab ku sii shideen sidaas miyaanay marka ku habboon inay la baxaan Kismaayo we care instead of Somali we care iyagu haddii la weydiin lahaa waxay dhihi lahaayeen inkastoon isku daynay guddoomiyaha Somali we care inuu maanta idaacadda nagala qayb qaato haddana ay noo suurtagali weyday laakiin haddii la weydiin lahaa waxaa laga yaabi lahaa inaysan kugu raaci lahayn inay dab shidnaa ay baasiin kusii shubeen maxaad ku mataqaanaa muujin kartaa ama ku caddayn kartaa inay baasiin kusii shubeen waa suurtagal inay iyagu soo arkayaan suurtagal weeye laakiin waxa jira waxa weeye xaqiiqada aynu arkayno meeshaas meel dhib ka taagantahay weeye oo dadku iskaga soo horjeedaan gar iyo gardaro kay doontaa noqoto dabadna si buuxda bay dhinac u raaceen magacay la baxeenna waa wax Soomaali kulmiye weeye marka isma waafaqdo taas aragtideeda cawilow ogaantay aasaaskii Somalia we care kamid baad ahayd ilaa iyo bilowgii arrimahan ay soo bilaabanayeen tiimka waa soo socoteen dhowr jeer hadda waad ku celisay inay saaxiibada yihiin marka goormay wax xumaadeen haddii ay wax qaldameenna ma isku dayday inaad saaxiibada la wadaagto sidii ka wanaagsanayd ma waa jirtay inaan ururka ka mid ahaa oo aan isla soo jaanqaadnay oo wada shaqayntiisa aan maaragtay ka mid ahaa haddii ilaahay kuusoo wax jira bay ahayd laakiin anigu waxa aan diidanahay wax weye magaca ay la baxeen howlgalka iyo waxay sameeyeen waa meesheeda laakiin magaca ay la baxeen iyo meesha ay mareen baan islahayn taa weetaan ka hadlaya haddaan usoo noqono dhinaca dowladda federaalka madaxweynaha xasan sheekh maxamuud waxaad ku sheegtay in uu ka daray kuwii hore uusan ka roonayn laakiin haddana tala ayaad siisay inuu kuwii hore ka roonaado marka bal ayadana tusaale naga sii sida aad is leedahay wuu oga daray iyo rajada aad ka qabto inuu ka roonaado xaqiiq waxaa xasan sheekh inaad looga hanweynaa nin maaragtay runtii da'yar marka loo eego raggii ka horreeyey shariifkii mooyaane marka waxaana isweydiin laha oo la isweydiinayay Soomaaliya ma jiraysa mise ma jiri doonto marka waxaan aaminsanahay inuu ka mid ahaa ragga su'aalaha isweydiinayay bacdalaba nin dhalinyaro oo maaragtay aqoon-yahan yahay inuu ka mid ahaa dadka isweydiinayay arrinkaa ayaan filayay dabeedna si buuxda baa Soomaaliya gacan u wada taagto waynu ogeyn codku helay waxaase muuqata markaa oo ku sifoobay hamigii iyo rajadii laga lahaa wuxuu hungoobaye hoos ma ugu dhacay inuu maaragtay ku faylgaroobay aan wadadii marin laga filayay wax kastaba ha ku kalifan duruuf si kastaba ha noqoto hadday noqoto mid siyaasiyan hadday noqoto waa xamar 3 xafiis baa ka furan jaamaca maxaakiimtii dadka lagu laayay xafiiska teersan meel milishiibooda ay leedahay xafiis kale oo furan ma jiro dowladdu waa magac qurbaha ka jira weeye magacaana waxaan ka baqayaa inuu Kismaayo ay isgalaaftaan sidaasaan ula taliyo waxaan idhi bi waaye kor eego waxa maynarka ah ka gudubo godkii laynagu riday yeenaan dib ugu noqonin laakiin cawilow waxaa laga yaabaa hadda xasan sheekh ama dowladda ama dadka dowladda taageeraya haddii la weydiiyo arrintaasi inaysan arrinta Kismaayo aysan minor ahayn maadaama dowladdu ay Soomaaliya u dhalatay ummadda Soomaaliyeedna inay wax u qabato laga ramo waxaa laga hadlaya waxaa weeye 3 gobol oo waaweyn oo kheyraad leh maareynteedii iyo dejintoodii waxa dowladduna ay ku doodayaan dadka hawshan gacanta kula jiray maareynteedii iyo dejinteedii leh dadkeedii ma aha ehelkeedii ma ahan mana ramaan inay dowladda soo maraan marka hawsha ma ayadaa fudud markii loo fiiriyo Jubbaland samaynteeda waa qayb libaax oo Soomaalida ka mid ah oo in si la hubiyo dowladdana waajib ka saaran inay ka soo baxdo loo baahan yahay miyaysan ahayn arrinkaaba hadduu khilaaf dhaliyey horta waxaynu ognahay xasan inuu aanu ku dhaqmin wixii dastuurku ahaa qodob waxaynu ognahay inuu ku sameeyey oo ka gudbay oo la soo baxay mid cusub oo aan kii hore la isla ogaanu ahayn arrintaas laakiin waa eedeyne wax cadayna miyaa jiro luqada bad Chinese buu ku qoran yahay
wuxuu ku qoran yahay ingiriis buu ku qoran yahay faransiis buu ku qoran yahay carabiga soomaali buu ku qoran yahay kii hore originalka ah mid cusub oo wax laga bedelay buu la soo baxay xasan suu isba qirtay markii Puntland uu joogay ka soo gudubtaas taasi waxay ku tusaysaa inaanu daacad ka ahayn wixii lagu heshiiyey midda labaad waxa ay bacdamaaba aad isleedahay ma jiraysa mise ma jiri doontaa arrinka kane hadduuba u arko inuu isagu xaq u leeyahay inuu ka taliyo meeshan maamulo asay caqabad iyo dhib ku noqotay miyaanay ahayn inuu uga gudbo meesha ka culus iyo dhibka ka culus uu ka sii aado oo tan dib u dhigto miyaanay ahayn laakiin arrinta somaliland arrinta jubbaland arrimo process oo aan laga tillaabsan karin oo soconayo wey haddaan taaba kugu raacno inuu bal dib u dhigto dhinaca kale maamul goboleedka puntland baad u gudubtay farole waxaad sheegtay inuu ku mashquulsan yahay daaroodnimo feeg ah oo aan jirin da-diisa iyo waayo aragnimadiisana inay soomaali uga faa'iidiyey ahayd marka xoogaa iyadana waa dhaliil aada u culus oo lagaga baahan yahay inaad caddayso cabdiraxmaan waa nin weynoo da-weyno maanta ku jira sana 8aad wey qiyaastiisaan filayo xilal badan oo kala duwana dalka ka soo qabtay aqoon-yahana weeye waxayna aragnaa oo muuqanaa beryahan dambe inuu si buuxda ah oo aan xitaa dhexdhexaadsi lahayn oo gobolka hawshiisu taagan tahay uu u taageeray oo af iyo adiba ugu taageeray daaroodnimada feega markaan leenahayna wax weeye kuwuu dhiibayay etoobiyaanka u dhiibay xabashiga daarood bay ahaayeen uguma u hamran kuwanuu labadiblaha u hayo khaatumo ah ee cadowga kale ay la soo dagaalamayaan labadiblaha u hayo waa daaroodnimada weeye haddii uu ka run sheegayo sidaa aawadeed daaroodnimada tan maanta uu shaarka u gashaday inay feeg tahay oo wax maarata niyada aanay ahayn ayaad halkaa ka arkaysaa marka waxaan aniga ila qurux badnaa inay da'diisa iyo aqoontiisa khibraddiisa ay noqoto wax soomaaliyii waxtar u ah wax dhib u keena aanu noqon arrintan jubbaland taageeradiisa fikriyanka ah iyo tan gacanta ah maxaa dhaliil oo uu ku leeyahay muwaadin soomaaliyeed siyaasi soomaaliyeed deegaan ahaan deegaan xiriir la leh abtirsiyaha deegaanka asagoo jifa ahaan ilaa already magacyadii waan isticmaalnay nin reerkiisu ay kasoo jeedaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbaland marka inuu taageero inay maamul meesha kasoo baxaan maxaa dhibahoo ku jiri kara nin baa reer gabadh ka guursaday baa layidhi markaasuu inalayaal buu noqday dabadeedna gabadhii buu iska agseexan jiray oo hawshii isaga ku baahnayd baanu kasoo bixin maalintii dambe reerkii geel laga dhacay baa layidhi halkaasuu qorigii iyo ninkii oo dagaal maaragtay ayaa kusoo baxday gabadh dimaashigiis kusoo baxday war xagaad u socotaa bay tii hebelow markaasuu miyaadan maqal geeliisuu kala dhacay reerka waxay tii war geelaas rag baa leh hawshiisuu taallaaye adiga hawl kuu taalla maad qabatid hawl kuu taalla maad qabatid cabdiraxmaan waxaan ognahay meesha uu xukumo in dhib badan ka taagan tahay gobolkan rag baa jooga isu taagay hawsheeda wada waxaa igala habboon meesha uu ka taliyo inuu mushkiladeeda iyo dhibaatada ka taagan xalilo intuu meel kale u dabqaadin lahaa ta labaad hadduu taageerayo waa nin weyne dhexdhexaadsado oo si diblomaasiyana si dhexdhexaada si xalku inuu maaragtay u taageero hadalkiisa ku waajooba ka qurux badnayd inuu shaarka ula baxo ugu dambeyntii qoladan jubbaland qudhooda waa taabatay waxaanta ku sheegtay in durbaba meeshii uu dhiig ku daatay dadna la dilay haddana taasna aysa habbooneyn haddana waxaad kula talisay hadhow in haddii meesha loogu yimaado ay wareejiyaan aysa xabado qaadan laakiin waxaa weli muran ka taagan yahay dhiibidii meesha loo dhiibay laftarkeedu inaysan sharci ahayn marka bal arrintii dadka la dilay iyo aragtidaada iyo weliba sidaad u aragta maamulkan hadda jiro ama waxaanu ognahay meeshaas iyo nimanka odayaasha ka taliya waynu si fiican baynu maarata ula soconnaa xaaladahoodu horeysi iyo dibba si fiican baynu ula soconnaa marka bacdamaba aan anu kolley nin sheekha aad sheeganaysid oo wadaada oo aakhiriya adduunkaba ma garanaysaa wax ka garanaya aad tahay ammaanaduna waxa ay tahay aad og tahay inaad ku dagaalantid shay aadan lahayn marka ugu horeysa wax toosan maaha aniga sida ila tahay waxaday ammaano tahay oo aadan lahayn oo dadka ula siman tahay inaad ku dagaalantid dee dow maaha marka labaad innagu waxaanu soomaaliba ama dadka afrikaankuba ay caadaysteen qofka hadduu meel loo dhibo oo madax ka noqdo inuu wuxuu isaguisa siiyo oo hadhowta ka tegitaankeeda uu qoryo soo qaato ama lagu dilo ama wax ku dilo sidaasaanu idhi haddii maantaba ay idiin islaaxdo oo idiin shaqayso oo aad meesha maaragtay hanataan berrito markii layidhi xilkaa laydinka wareejiyo si habsamiya uga taga qoryaha u soo qaadanayne
ugu dambeyntii maanta magaalada waxaa ka jira shir ballaaran shirka oo ay ka hadlayaan siyaasiyiin doctor cabdiraxmaan baadiyow iyo doctor cabdiqaadir cabdi xaashi oo ahaa xildhibaan doctor baadiyow isaguna madaxa jaamacadda banaadir raggii madaxweynenimada u tartamay xasan sheekh la tartamay ayuu ahaa sidoo kale waa madaxda sarsare ee ururka islaamiga ee islaax maxaad is leedahay siyaasiyiintaas soomaalidu way kusoo kordhin karaan edmonton degan soomaalida edmontonna maxaa ku habboon inay barnaamijka kaga qayb galaan waxa weye waa mahadsantay jaamac labada nin baa awas naqaanaa waa laba nin oo runtii aad iyo aad u fiican oo caqli fiican leh haddii ilaahay ku mas-uuliyiina aana filayo de kolley wixii intii aragtidooda iyo kartidooda iyo awooddooda ah inay soomaali la wadaagi doonaan aanay waxba ka hakranayn maalin dhexdaas dood ujeediyey cabdiraxmaan rag la wadaagay aad baan uga helay oo uu lahaa waxaa leh eedaynta iyo toosinta dowladdaa leh xukunka ninka hayaa leh ee shacabku ma laha aad iyo aad baan uga helay runtii waana hadal aad odhan kartid waa hadal garah oo meesha ku jira waxay garta sheeg baa la yidhi ku dagaalalay ma odhan marka waxaan filayaa wixii fakarkooda iyo awooddooda inay soomaali wax ku geysan karaan wax ku tari karaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cawil tarabi mar kale barnaamijkaadii gaabnaa ayaad noo soo diyaarisay iyo weliba waraysigan aad nagala qayb gashay aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay baarak allah fiik fursaddan aad siisay halkan kaga dhiibtay fikirkeyga